kacdoon hal qof qoraal uu qoro ka bilowday oo ku dambeeyay odayga saaxiibkay BK oo maxkamad saaran war maanta anaa wax idiin haayo war anaa maanta sheekadu halkaas marayso oo shaki uu sii xogeystay BK walaalkiisaba soo inta hore wada socdaan xiriir jacayl baa ka dhaxeeyay muuqaalkana nal weyn ifiya marka oo dadkii oo dhan السلام عليكم armaanta abdeeda idin hayaa sheeko waayadan hadaa ku wareersanayeen dhankaas iyo diyaaraddeena maanta dhankaas iyo Soomaaliland fadhida landriskan maanta marti u nahay hadaad indhoweyd fuusta inta ka dhacday xaal marinaan ka bixinay haday wax iska kaadaba marmarayeen waxaan rabaa anaga shuunu daakhiliga arimaha familka iyo waxas ma galayno laakiin waxaan rabaa sheekadan bilow ilaa dhamaad dadka anagana daawada anaga inaan muuqaal soo duubnaan ku howlanahay ama dadkeena caanka ah inaan wax soo gudbino dadka anagana daawadana program kana meel u maraya macnaha barnaamij kaliya caadi u wataanba waxaan rabaa barnaamijkii saaxiibkay Maxamed Saciid BK xogaha qulqulutooyinkii jiray dadka daawadayaasha iyo reer Commentland meesha ay ka soo bilaabeen dhaqdhaqaaqa ma maqli jirtay ciyaal xaafad jabhad isku bedelay ciyaal xaafadnimo intay ku soo bilaabatay jabhad isku bedeshay kacdoonna waaweyn isku bedeshay ana maanta war idin hayaadeen cusub tahay fadlan jalanka ku soo dhow gacan furan commentigu maanta waa reer Commentland is not easy reer Commentland is not easy commenti uu soo qorasiiba dumarland is not easy laytana barnaamijka noo saar waa kiin maamina horta barnaamijkan dad badan confused ku ahayn way ku wareersanaayeen dad badan way la socdeen siiba dumarka 180 waa la socdeen barnaamijkan anaga waxa naga qusaysa dadka daawadayaasha ah barnaamijkan si uga falcelinayeen maalin walba marxaladda meeshu soo gaarayay maalin walba wixii soo cusboonaanay guulihii la gaaray waxyaalahaas oo anaga naqusay laakiin dhankaas uu daakhiliga nama qusayaan iyo arimaha familka waayahay barnaamijkan BK uu fanka ka soo laabanayay gabar ay hodan dhahaan oo aktarada bay horta la socotayba ay fanka uu ka soo laabto sheekhnimadiiba ka soo raadaysay ay fanka ku soo laabtay gabadhan dadka ugu horeeyay ee soo dhaweynta iyo bulshada arimahaas ay kamid ahayd adoonta YouTube-ka sax oo linkigiisa idin soo dhigayo halka waxaad ka dheehan doontaa waxyaabo bahasho halkaas maraysa oo gabadhan soo dhaweynteedii howlaheedii iyo BK markuu ay la socoto leeyahay haddana waxa bilaabatay heesii ugu horeeyay aroosidii ugu horeeyay oo BK kala kicinayay in la xiisinay waa abaar fan ka maqnaayay qoftan wadana waa la taagan tahayba gabara ilaahay amarkiis marka waxay iska soo qortay niyo dhaqdhaqaaqa ima ajibin عشان sheekadan uma bugin qoftan uma bugin aaw qoftii Faadimo Quruxwan adiga commentiyo noocaas oo dhowr qof ha bilowday fiiri afar qof miya saddex qof bay hadalladaas ka bilowdeen kadib sheekadii marka waxay noqotay in loo fiirsado BK iyo gabadhan markii kulmaanba ama meel ay wada jooga in loo fiirsado muuqaalkii la soo dhigabo ninkaan naagtan maxaa isdaba dhigay jaacalama su'aal isku bedeshay sheekadu waa sii socotay oo ID way iyo maalmihii calanka iyo maalmihii baa la gaaray oo muuqaaladooda hadana la soo saxay oo isla joogaan Faadimo Quruxwanaag TikTok maysan lahayn waxa lama eegan kare jaafa gabadhii BK uu qabay in la raadiyaa bilaabatay fiiri baasha meesha ka bilaabatay ima ajibin ka bilaabatay hadda qoftii in la naadiyay maraysa muuqaalkana marka nal weyn ifiyay BK oo kaliya soo istaagay oo heesta hodaray qaadaya uu hodaray afkiisa ka sii dhamaanaysay qoftaana daaqada soo gashaba commentiga dhan waxa isqabsatay de walaal ma fadhin karto way soo boodi un warqo xafladihii ay dhinmay iyo aroosyadii ka dhadhawaa ereeyadaas oo dhan wiilkan ay gabadhan waa isla joogaan sheekadu waa sii kululaatay reer Commentland marka waxay bilaabeen dagaal naaninka ka duro intaan warcad ka helin naaninka maxaa kuwa intaan Faadimo jawaab ka helin ninkan sheekadu halkaas marayso reer Commentland siiba dumarka uu hiidka gaarsiisan yahay BK walaalkiisa soo hadlabo hambaliyo baf meher aroos baa dhacay oo meedii waa isku daba dhacayba waa bas la qaraxdaba Faadimo iyo qamiiskiiba maalin buu meel uga soo tagay Faadimo laga guuriyaa hodan baloogu waa maalmihii macnaha baashu dhanaanayd hadaladii ay adeegsanayeen ugu badnaa ee trainka ahaa waay wax yar ba kama soo wareeginba BK iyo gabadhii isla taagan oo gabadhii ay leedahay ninka ilaa afar buu u baneeyay iyo BK oo taagan war walaashii baa taawaan iga yartaa isku lambar namaneen ninkan mid kale waa nin raga afar buu yahay u baneeyay taalaftarkeeda عزديدا كميل inantan waa walaashay waana inantaydii isku lambar namaneen وتقدم كنت بتقول تقول إيه قري ما فيري قري قرا لا عبك يا dumarland comeback adag sameeyeen Faadimo is back دكوين Faadimo Quruxwanaag is back
واو buuqoodii caadi u siraateen ilaa baashu mar hadduu meher dhacay iyadoo xaaladdu ay jiq ku tahay oo ay leeyihiin wallahi nin Soomaaliyeed ay leeyihiin barnaamijka ma la arkay jahdar dib u soo noolaadeen kan baad bay sameeyeen degdeg ah kan baad haba sameeyaan ma xumay fiiri kacdoonka meesha ka bilaabayaan ballameysaa bilowda marka weeres faadmo jaa in ayadii la meeshin garay weeres faadmo qurux wanaag ina qoftaas ina aragnaan maalmo yarba kama soo wareeginba odagay biikiya maxkamad saaran wuxuu taagan yahay aniga waxaan waa fuustil u soo riixay marwadeed aan weligii beenna ma weligii shortu amaana jiray weligii marwada amaana jiraan aniga aan qaba oo aan jeclahay ibraha bulshada waxaan ku arkay foostadii la soo riixay gabadh baa la iskaaga saaray oo la yidhi waa meherkaas ma jiro rumahay hadaa gambar dhigtaniyo waa anaa isla yaab marmar anaa iska qayliyo waa dhiganaa gambar haddaan ku dhac cariiri intaas ma looga haraa may weli waa lagu sii socdaa faadumoy sibu u gariirayaa waxbaa jira naga hubi wallahi uu gariirayaa faadumo is not easy يا بس تفضل حشمك في هذا الجيران يا أخي حقوق البني بس يا أخي يا حبيبي يا حبيبي وفروم قفتان إما عجبين دقائق وبوين كعضون كبلوضي تبيك هي محكمة سهران أو لأنك حاسكي كان جعلها باشس بالفوسة سيلو ريحة يا كبر قبل دا كو شهر تمرك قبل دا أيضا نفتر كده لغاما بدين كرو داد كان ميديا واحد مداني اكسبيرينس أولا دا صبح إسكا سو كحي سورك بيكي انتي سو ديغتو أي واحد سو ساري وامقانا عدان سو لابتي كومنتيغا واحراني دومركي أرتان تان ميلان ككرباش sheekadu halkaas marayso ninkii biikay walaalkiisa soo hadlay wuxuu yiri dhaqan iyo isimo iyo dhalinyaro iyo fanaaniin waa la soo taliyay anaa degdegay meheraan dhicinan iyo maraya waxbaan adigu hoosta ka baalkay laas xiriirka wiilkan iyo gabadhan waa ka dhaxeeyay waa dhab dee gabadha xiriir inuu ka dhaxeeyay tii wax jira laakiin waan ka raali gelinayaa madana xalna waa ka bixinaya ereyga uu yiri dee foosta la soo riix teeninta hore wada socdaan xiriir jacayl baa ka dhaxeeyay ninka waxa markuu cadeeyay inay xiriir hore jireen meherkan asagu uu si mataqaana degdega u soo dhigay wixii oo dhan markii la kala cadeeyay gabadha noo geeyaa la yiri gabadha naftirkeeda waa mucjiso kale hodan hees mitees ka soo dubtay leedahay waxba jira aan la sheegin macnaha part 2 waa dhiban macnaha aniga ma i wareysateen oo af ingiriis waay waxba jira aan la sheegin reer comment la waxay taagan yihiin war fuusta la riixa arki jirnay tan waa fuusta is riixaysa macnaha sheekada halkaas ay maraysaa marka macnaha filinkan wuxuu ka bilowday 2 qof 3 qof oo yiri ninkaan inaagtaa sibi xogaa maalmaha isugu badbadan yihiin sheekadan ima cajiba fiiri dadkan la daawada ayaga xisaabba meel ugu qoran wiil iyo gabar ay isku ogaayeen haddii wiilka 2 gabdhood gabar kale naag kale ay ku arkaan wiilka 2 maalmood ay ku arkaan waxay taageen horta ninkaan soo xaaslama ahayn horta gabadhiisi meeday ayaga xisaaba meel u wada marayso aniga hadda waa arkay heestan manadu hodanay ma ku qaadayo biikii 10 jeer ba arkay iyo gabadhan isla joogo hal mar iguma soo dhicin anoo dhahay macnaha niyo kaalay isku ma jirto laakiin dumarka ayaga xisaaba meel ugu qoran jaanin kasta meel buu ku jiraa luuq kasta dhagdhag jadwal ba u qoran kii gacan dhaaf sameeyo yii waa calaamadsan yahay jaaweerra bilaabanayo hadda biikii isagoo meel lagu ogaa oo 2 maalmood gabadhan lagu arkay commentiya bilowday kacdoon buu isku bedelay ilaahay biikii qorta la soo qabto ilaahay amarkiis waxaan ilaahay ka baryayaa horta inuu kiiskan meeshan ku xirmo dabcan wixii xal marin ahaana biikii walaalkiis baa bixiyay biikeena waa isbari yeelay gaxaaskiisa hore gurigaasna waa badbaaday gabadha naftirkeedana dee mar hadiisan reer comment laan dadka weeraradan la xogaa waa iska dhicinaysa iyadoo taas looga baqi maayo waa midiya qof fahansan laakiin sida kale xaaladda hadda jawigaas meeshaas uu ku dhanyahay waxaan rajeynayaa kulay gabadhuna hadii jaa soo bilowdo waxba jira aan la sheegin ya wareystoy way gabadhan xaaladeeda inuu jawigeeda meeshaas ku damo baan rajeynayaa marka waxaan u maleynayaa dadkii wareersanaa ee waxaan isla dhaxmaray landriska waxa way dhagaas iyo aad bay qorshahan ula socdaan waa video bilow ilaa dhamaad way ila fahmayaan laakiin Soomaalida kale ee aan wareersanaa biikiyo mar la eriyanayo mar xaggo la eriyay mar gabadhan lagu dhigay xogaa ku wareersanaa ama jaawareer ku jiray kacdoonka meeshuu ka bilowday iyo meeshuu ku dhamaado hadda xaaladda ku soo afjarantay in ay idinka dabageeya u maleynayaan waayahay dumarland weerar culus baa qaadeen annaga sheekadan rag haddaan nahay banaankan ka taagnayn ma soo dhexgelin baashaan kuran ka fiirsanayni haddaan soo galnaan inaan ku jabnaa suurtagal ahaan leed way meesha aan la safan lahayn waa ognahay marka gacmaha kor taagnay waayahay barnaamijka dumarland hambaliyo waa fuustaas inta iska qabateena waliba waxa way laba dhibal caad u kacdeen macnaha wixii waayahay
برنامج قناه قروح بدل قد يلا عندكم تروح ولا كل سبسكرايب